ورعسو ميديا أيا مانت بوقشو ويمي ماد محمد علي أو حبين كترسن حزب تايو أوسل نوروي وربحين مناقسي كرتا حفيز كان قروح بدن أن صباغني مانتي حفيز كان وحوكو يالا عوانكا سورغاستا ترتي أوتي حفيز كان حفيز أفران مدى الصومالية أفران قفل بوا الصومالية وربا ودنين يوم مدى الصومالية دنين الوهضو أيو أفران ياي وأنا حفيزك فرع أوصل حسبك تيو حسبك تيو وحو سميسان ياي من مدى مدى الصومالية حسبك وحا مدحوا مدن محمد عبد الله فرماجو مدحوا هل كان مركو إيماني سنتكي لبدي يكون إيو كوية طبنكي مركو هل كان إيماني ددوينها ريا أوصلو أي سود دويناي كدعس شركي قيمها بناء أديات ومنكسنا لغم عابي هوب بيس كونفرنس. بسم الله الرحمن الرحيم. وضنيال يمروين وحيث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيرتها عاوة هبين ونكسن إنay tahay oo barakaysan intaan oo Soomaaliya oo qalbi wada wanaagsan hal qol isugu yimid ninkii odaga ahaa wuxuu tiri door laan wuxuu yiri no land hadda waxaan ku noolnahay midnimo land waxa fadhiya bulsho weyntii Soomaaliyeed waan cid u kala maqnayn runtiina waxay ahayd muddo hore oo fog inaan fahamno si Soomaali xal loogu helo annagana halkaan si fiican ugu noolaan laakiin waxaan oran karaa it's never too late wali waqti horta aad baan ugu faraxsanahay Norway inaan imaado dadweynaha heer Oslo oo barnaamijkan soo diyaariyay waa barnaamij aad u qurux badan aad baan ugu mahadcelinayaa dad badan ay yiraahdeen waa u soo xiiseynaa aan tigidhkan bedeshay dib aan u dhigtay anigu waxaan ahay Amiin Caamir waxaan ka hadlaa gacanta ma tii dagaalka qaranka dadka qaarkood waxay ugu tilmaamaan gabayga aamusan sawiradeedu waa wax hadla oo gabay waayo oo aamusan marka waa sawiro qaarkood markaa wax ka sameeya siyaasadda Soomaaliya marmar waxaan tilmaamaa dad siyaasiyiin ah dadka siyaasiyiinta qabiilkay u dhasheen wax kama sheegin shakhsiyan wax ka sheegay ama aan wax u tilmaamay marka ma aha in dad u qaataan dad qaarkood in amiin oo qabiilkaas u necab yahay tan labaad waxaan u dagaalamaya oo aan u soo jeedaa 24 saac aan sawiradaas isdaba joogga u soo geliyay website-ka islaanta shalay oo in qoriyo soo gurto suuq keento oo ku iibiso canshuurta laga qaado ayaa wax ku soo bartay marka inaan ka aamusmo ayadoo dhulku lagu jiidayo aniga marka waxaan aad ugu helayaa dadka dulman saaxiibkii hadda wuxuu waxba kama sameeyay amiin aniga dadka dulman waxyaalo badan aan ka sameeyay oo hadda tii ugu dambeysay oo ka dhacday aynaba haddii aad xasuusantihiin marka in badan lama ka sameeyay mar walba waxaan u doodaa dadka dulman waxaa jirto Soomaali waxay la hagaagi laadahay waa macnaha hal iyo xaq aad kala garan lahayd dawlad kastoo timaado waxay leedahay xalan raadinaya horta xaqa ka horeeya dad baa xaq laga hadda caawda waxa laga sheekeynaa 4.5 aniga wax ka darnaa baa arkay anoo mar Toronto joogo waxaan tagay meel dhalinyaro badan joogto marka dadkii ay salaamayaan Amiin Caamir islaan gadaashii taagneed waxay maqashay Amiin Caamir waa ninkan markaas ay tiri Amiin Caamir la sheegay ninkan miyaa wiil bay weydiisay agtagna markaas uu yiri ha markaas ay tiri Soomaaliya mooday waaba gibil caday waxa dalkeena ka taliya
UN qaramada midoobay AU-da ururada dowladaha Afrika IGAD oo ah kuwa la mid ah ama iyaga ku aftirsada Mahiga oo ah nin ah waxa uu yahay oo aan u baahnayn inaan tilmaamo dowladda Ethiopia oo ah cadowgii sooyaalka adduunyada u yaal ee Soomaaliyeed aha cadowga Soomaaliyeed tan iyo intii wax laga qorayo Soomaaliya Kenya oo hadda tartanka ka soo gashay oo laga adkaatay iyana oo dadkayga u qaxay oo ku gumoobay wax walba waxa iiga daran oo ugu muruga badan kuwa askaraha soo diray ha joogtay qaybtii ka go'day Suudaan ayaantii dhaweyd oo aan weli baranin sida dadka loo xidho ayaa tiri ciidan ma u direena Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliyeedna Hobbies Conference artiyadoodu waxay ahayd sida wacyigelinta in ummadda ay wada hadli karto in ummaddu danteeda ay ka wada hadli karto midnimadeeda horumarkeeda cadaaladdeeda sinaanteeda iyo quruxdeeda ummadda Soomaaliyeedna waxaa ka maqan hadda waqtiyadan hadda xaadirka ilaa 20 sano la soo dhaafay burburkii ka dhacay waddanka Soomaaliya meena helin wax isku duwa oo ka hadla yani nabadgelyada dadkeena ayaa u baahan nabad dadkeena meel walbaba oo ku dhibaataysan haday noqon lahayd wadamada dibadda haday noqon lahayd waddanka gudihiisa haday noqon lahayd meel walbaba marka ummadda Soomaaliyeed waxaa ku jira dad aad iyo aad u wanaagsan oo daneynaya horumarkooda wanaagooda sharaftooda sida caalamku u nool yahay marka anagu haddana xisbiga tayo waxaan mar walbaba aan wacyigelinaa ummadda Soomaaliyeed sidii ay horumarkeeda iyo qiimaheeda iyo sharafteeda ay dib ugu soo celin okay farmaajo Oslo bas lagu soo dhaweeyay oo u yimi oo ka hadlay mise meel kale u tagaa jirtay wadamada u tagaa waxaa ka mid ah Sweden waxaa ka mid ah Holland waxaa ka mid ah Denmark iyo marka laga hadlayo Mareykankana aad iyo aad ayuu meel aad u tir badan ugu tagay ayadoo si wacan loogu soo dhaweeyay oo markaas ummadda Soomaaliyeed ay ahayd mid aad iyo aad u daneynaysa inay dib u dhiska waddankooda hooyo si ay dib ugu dhisi lahaayeen oo ay dib ugu noqon lahaayeen oo dad badan oo tashadaan yaa wax wanaagsan ka soo baxay laakiin marka aragto talo qof kaliya u wato waa mid gaar ah taasna waxa la burburiyay oo 21 sano naga reebtay caalamkii oo la gelisay hadda inaan raahno gobol gaar ah u istaago waa loo baahan yahay goboladu inay ismaamulaan ilaa degmooyinka hoose inay ismaamulaan waa loo baahan yahay laakiin markii aan la wada tashan lama tartami kartid caalamka hadda isu wada tagay lama tartami kartid wadamada Afrikaanka ah maxaa yeelay waxaan ognahay gobolada qaar in ay degan yihiin dad kooban marka loo fiiriyo haddaad la tartanto wadamada deriska ama wadamada Afrikaanka ah waxa ay ku hormareen
ama meel ku gaarin ma aha in gobol walba uu gaar u taagan yahay ma aha waxay horumar ku gaareen in goboladaas oo dhan ay hal central leeyihiin gobol walbana la dhegaysto dhibaatada uu sheeganayo waxa uu tirsanayana laga kaafiyo laakiin gobolba hadduu yidhaahdo anugu waxbaan tirsanaya gaar baan u istaagayaa gobolkaasna meel gaari maayo guud ahaan nationkiina ma istaagi karo marka waxaa loo baahan yahay midnimo waddankeennuna waa waddan aada iyo aad u qiimo badan oo meel ku yaalla aada iyo aada u qiimo badan oo haddii dadka la helo dowlad soo celisa nabadgelyadii iyo xasiloonidii in ummadda soomaaliyeed ay danaynayso inay dib ugu noqoto waddankoodi hooyo mahad waxaa jirta haddii la fiiriyo maaragtay youtube-ka ama meelaha qaarkood waxaad arkaysaa dadkii aad usoo dhaweynaya farmaajo maxaa is leedahay farmaajo waa qof see ah waa isaga maxaa keenaysaas loo jeclaado muddadii xasan hadda ummadda soomaaliyeed waxay danaynaysaa qof u keena wax wanaagsan muddadii waxaan dib ku siinayaa markii ay xukunka hayay muddadii 6 biloodeed 6 bilood dowladdii tayo waxa ay muujiyeen ayaa waxaad moodaa in iftiin ay muujiyeen oo ummadda soomaaliyeed ay u riyaaqday sidii qaabkii wanaagsanaa ay u shaqaynayeen in ay doonayeen dowlad wanaag inay doonayeen yacni nabadgeliyo waddanka soomaaliya inuu ka dhaco inay doonayeen inay dib u dhisaan waddankoodii hooyo waxaan taas saalaan kuu siinayaa markii ay hayeen xukunka in ay ayagoo yacni dowladdii tayo markaasi ay ahayd mid firfircooni ku shaqaynaysa dadka weynaha soomaaliyana tusinaysa gacmahooda in ayagu ay dowladnimo ku samaysan karaan tusinaysa in midnimada ummadda soomaaliyeed ay ku jirto gacantooda inay dib usoo celin karaan nabadgelyadii xasiloonidii kala dambeyntii quruxdii sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed ay lahayd taasna waqtigu kuma simin muddo 6 bilood bay hayeen laakiin ummadda soomaaliyeed waxay dareemaysay 6daas bilood haddii jaanis kasii wacan ay heli lahaayeen in ay maanta meeshii joogta ay kasii wanaagsanaan lahayd oo dowladnimo iyo horumar lagu taaban lahaa baan anigu aaminsanahay mahad siyaasadda tayo ee ku wajahan soomaaliya hadda waa see xasano waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan su-aashaasi siyaasadda ku wajahan soomaaliya xisbiga tayo horta ummadda soomaaliyeed waa ummad soomaaliyeed waxa wanaagsan in isku gudbiyaan xaq bay u leeyihiin qof walba oo soomaaliya oo muwaadina oo u dhashay soomaaliya hadda kasoo qaad meel walbaba soomaaliya nabaddu waa muhiim haddii laisba bardhigo colaad iyo nabad waa laba shay oo kala qiimo badan kala qurux badan ummadda soomaaliyeed ay dareemayso midkay haystaan colaaduna waxay la hartaa ummadda bay la hartaa nabaduna waxay dhistaa ummadda sida anigu hadda aan aaminsanahay haddaan tusaalahaan usoo qaato colaaddu waxay burburisaa burbur bay leedahay conflicti bay leedahay waxay leedahay dhimasho waxay leedahay dhaawac waxay leedahay ummad markaas jirtay inay baaba'do oo ay suusho nabaddu waxay leedahay horumar waxay leedahay qiimo waxay leedahay midnimo waxay leedahay cadaalad waxay leedahay sinaan waxay leedahay wax walba oo qurux badan oo ummadda soomaaliyeed ay u riyaaqayaan bay leedahay marka siyaasadana waddanka ku wajahan soomaaliya haddii aan dib aan ku raaco waxaa soomaaliya ka socda loolan yani siyaasadeed baa ka socda haddaan ku hormaro yani puntland january bisha january waxaa ka dhacaya doorashaa ka dhacaysa doorashadaasna waxay udhexaysaa musharaxiin iyo kuwa hadda talada haya intaas labadaas qayboodna waxay doonayaan midba midka kale inuu hayo yani talada uu hayo marka annaga haddaan nahay xisbiga tayo waxaan horta ummadda soomaaliyeed mar walbaba u gudbinaa talada wanaagsan waxa wanaagsan waxaa laga rabo ninka liidarka iyo waxaa laga rabo ninka xukunka doonaya inuu qabto labadoodu waxaan ku qiyaasay anigu ra'yahaanteeda aan dhahaya waa nin garoon ku jira iyo nin rabo garoonka inuu galo
marka Puntland wax doorashada ka dhacaysa hadaan dib ugu soo noqdo January dhacaysa ummadda Soomaaliyeed waxa wanaagsan horta la isku gudbiyo way fiican tahay doorashada markay dhacaysana ninku markuu doonayana inuu ummadda inta hor yimaado wuxuu qaban karo la arko hadduu ku guuleystana markaas ummadii uu hogaamiyo inaysan dhicin yani conflict inaysan dhicin burbur inaysan dhicin yani qalalaaso inaysan dhicin dhimasho inaysan dhicin yani wax walba oo xun oo ummadaas yani dib u dhigaya inay dhacdo marka doorashada doonay nin walbana oo election ka soo galayaan waa inuu helaa fursad uu kula hadli karo soo gudbin karo ajendaha markaas uu wato sida yani waxqabadkiisa horumarkiisa yani aqoontiisa nidaamka dowladnimo siduu dadka ugu hagila inuu dhiso ummadda sida midnaba inuu dhiso waxbarashada inuu dhiso biyaha inuu dhiso yani caafimaadka inuu ka shaqeeyo nabadda waddanka Soomaaliya meel walba marka ninkaas imaanaya doonaya xukunka inuu qabto yani waa in markaas la soo dhaweeyo la arka hadduu markaas ciyaartoy fiican oo hogaamin kara bulshadaas in loo dhibo talada ay ku habboonto in la cabriyo maaha taas ayaan oran lahaa waa midda Puntland ka leeyahay midda Soomaaliya waxa ka dhacay isbeddelada ka dhacay Soomaaliya yani khilaaf u dhaxeeya dawladda iyo yani madaxweynaha iyo prime ministerki Saacid labadooduna waxay ahaayeen laba mas'uul oo laga rabo inay hogaamiyaan bulshada Soomaaliyeed sidii bulshada Soomaaliyeed burburka ku dhacay 22 sano looga saari lahaa laba mas'uuliyad waaye labada mas'uuliyad waxa laga rabay yani inay mas'uuliyadda ahaayeen nin walba oo ogaado mas'uuliyadda qaabka ay leedahay yani khilaafkana waxyaalaha kale inay iska dooreen been markii hadda aan tusaalahan ku soo qaato doorashadii Soomaaliya markay ay dhacaysay bishii markay dhacaysay ummadda Soomaaliya aad iyo aad ku meel gaarkii baa laga gudbay markii horena khilaaf waa dhacay ummadda Soomaaliyeed way ka hadlaysay inuusan khilaaf dhicin in horumarka bulshada Soomaaliyeed nabadda laga shaqeeyo in 4 sano يعني لو دمية جدكي يعني لا ترتيروا جد وناكسن وما دسوا عليه كسرت صهر أوكي خلافكم لبضع أول حاجة من لبضع مسؤول هذا واسم الدلهم هذا وحال المقعد برايم مينستر الصباح المقعد لكن ما أهاندونا ميت بدله جوي هور ليش يدي بيتشوي الس مرول بواسون قنيس مركا حافي عن dadka mas'uuliyiinta oo haya ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyiinta oo haya inay ahaadaan kuwa ku shaqeeya dhowrsiya kuwa leh xigmad kuwa leh geesinimo kuwa leh naxariis kuwa leh firfircooni kuwa leh yani wada shaqeyn kuwa leh yani intelligence yani comprehensive xaalad walba darsi kara ummadda Soomaaliyeed la rabo maanta in laga bixiyo yani xalka ay ku jirto iyadoo markaas la rabo يعني ومدو إني نقطه يعني سو عالم كنا بها وكذا دولة بهيستا نظام بيلين كلا ذنبين إن ومدة الصومالية تاسو لو سعودي أو لو جود بوجد كي خلدنا أي مركي ورا لغاتي أي كوي لو تكسن وتكي بربري إن لقى بدلو وتك الصومالية سيف ونكسن لودس تاس ومهم هو هذه تالي على ومدة الصومالية وحين كل وقت يسين ودن جوديسة iyo gudihiisa labadaba ku dhibaataysay maalin walba waxaan arkaynaa dhib socda oo aan joogsanin oo horumarkii dawladnimadii iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed curyaaminay waan aragnaa marka sida looga saari lahaa waxaa laga rabaa madaxda Soomaaliyeed hadda inay ka saaraan baa loo baahan yahay xisbiga tayo ma taageersan yahay dawladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh waa su'aal aad iyo aad xasan oo muhiim ah horta دولة وحلو تاجر كراو قبض كده مركي جد وناكسن أي كسرت وحلو تاجر كراو دولة ولا وذيك لكن هذا مش خلاف يالله محل التاجر هو سده ومضى يعني خلافه وحكينا إن لقفوا إن لا هذا جد كوناكسن أي دولة نمدا لا هذا إن وذا شقين بحدا أي صعطه markii halkan ay noogu imaanayeen xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliyeed
ay ka waddanka Norway hadda aan joogno sagaalkii bishii afraad 2013 ay halkaan ugu imaanay waxay dadweynaha Soomaaliya soo bandhigayeen qaanuunka iyo sharciga Soomaaliya la ilaalinayo hadda waxaa dhacday baarlamaankii inuu taladii kala noqday ra'iisul wasaaraha maxaa loo keenay waay baarlamaanka hortiisa oo loo u jeedin waay wuxuu markaas qaladkiis ilaan markii khalad lagu haysto waa in la soo istaago baarlamaanku dhageysta markaas baarlamaanku markaas uu go'aan qaata qiimaha ummadda Soomaaliyeed si dib loogu soo celiyo nin walba waxaad arkaysaa meel buu goostay waddanka Soomaaliyeedna waa 18 yani gobol nin walba oo mas'uulana oo meel walba joogan waxaa loo baahan yahay inuu badbaadiyo dalkaas inuu badbaadiyo baa loo baahan yahay dadkaas inuu keeno nidaam inuu keeno horumar inuu keeno wada shaqayn in waddankeena qiimaha leh iyo quruxda leh in dadkeena la tusiyo in ayaka loo soo shaqo doonto in la tusiyo يعني waxaan xasuustaa prime minister kii mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu halkan imaanayay sagaalkii bishii 10 bishii sagaalaad 2011 wuxuu sharaxay eray cajiib ah oo wali maskaxdeedan ka muuqda location meeshaan ku naal istiraatiijiga leedahay badahan haysano wabiyadan haysano xoolahan haysano nooma muuqda adduunkan meel intaas isaaran lama helo yani dadkeena in loo jeeyo shaqada in loo jeeyo waxbarashada inay wax soo saaran karaan inay wax soo saari karaan inay iibgeyn karaan ayagu in aqoontii iyo maskaxdii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd inay dib u soo noqoto ayaa loo baahan marka prime ministerku xigmadii markaas kelmadii aan ka qabtay waxay location meeshaan ku naal marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u gudbinayaa waddankeena meesha ku yaalo horumarkeena wuxuu ku jiraa gacanteena gacan kale looguma jiro horumarka waxaa keena shaqo keenta wada shaqayn baa keenta waxaa keenta firfircooni baa keenta waxaa keenta wadaninimo baa keenta dadka wadaniyiinta haddii la hormariyo waxaan u maleynayaa inay qaadan lahayd hal sano maba qaadateen Soomaaliya inay gacmaha isqabsato haddii dadkaas ay jaanis heli lahaayeen laakiin dadkaas jaanis ma helin waqtigoodii waa dhimaya jaaniskaas hadday helaan dadka wadaniyiinta hadday helaan muddo hal sana gudahooda bay meel walba waxay ka dhigayeen green waddanka Soomaaliya dadka hadda gaajada u baqtinayo inay nin walba maartay isku filnaado bayaanis maxaa waaye dadkeen waxay baabayeen waxaad ka arkaysaa hadda meelihii hadda dagaaladu ay ka dhacayeen oo Juba Suudaan oo kale dadkeen meel bay ku xariisin ayuu ku baqay wax soo qaadanaysa waxaad arkaysaa kuwa al-Jahiim yani ku Yaman ku dhibaataysan oo aan haysan guryo aan haysan nolol ku filan waxaad arkaysaa kuwa dhadhaabi jooga oo xareysan oo ku dhibaataysan oo meel waddankoodana soo yahay qiimihiis waa meel aad iyo aad qiimo badan haddii maskax fiican oo fiyo oo shaqo iyo cilmi iyo aqoon iyo dad fakar ay joogaan hal sano gudahood bay uga saari karaan dadkaas oo dhan dadka Soomaaliyeedna gacmaha isku qabsan karaan haddii ay helaan waa dadka wadaniyiinta Soomaaliya u fakaraya aan doonayeen corruption aan doonayeen aan doonayeen qabyaalad aan doonayeen isku hil ee doonaya midnimada ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay gacantooda isku saaraan marka ما سؤال كودي سؤال تبصعتها إذن كم تاجرتين دولة حسن شيخ مركي لدسي ياس حسن شيخ محمد ذاتك أوهري وتاجر بني مركي دور شذا حلقة أي دعسي يعني هو ترى بنا قيمة بنا ومدة الصومالية هذا داون شركة بروسل كان عيو كله شركة يعني بروسل لحية ممكن بيشي سجال الله بدي كونيو صدقيت ممكن دعي يعني لكشرة ذي الشيء دينا يعني يصير لو دقيستي كلمة هذا معان دكتور مريم قاسم آدي بالله يعني وحين أبورتي غير آدي تربضن دوينها الصومالية السوجي دتي محمد رجد الصومالي مركز حلقاس أي قف وقتي يعني أدون كل لقى في سنة يعني أجانب صومالي وحول باب إن يدبوا سنة قنيس يعني نسيب درو واحد عليه مركز كبعدين واحد عليه برلمانك الصومالية إن يسكر عن قوان يرادين كرسوني دي وانكال الله عني برايم مينستر مستر سعد سببتهم حياتي وي
baarlamaanku wuxuu u horkeeni waaye yani Mr. Saacid inuu hor hadlo yani haddii madaxweynaha iyo prime minister ku isqabtaan baarlamaanka ayaa la soo noqonaya baarlamaankuna waa sharci oo dadkii u dhaxeeyay waa sharciga qaanuunka iyagu marka anigu waxaan leeyahay mar walba waxaa soo noqonaya khilaaf baa soo noqonaya afartaa sano waa laga lumaysaa laakiin haddii dad wadaniyiina ay meesha ay joogi lahayn weligeed laisma qabsadeen horumarka ummadda Soomaaliyeed ee dowladnimadana dib bay usoo noqonaya mahad dagaallo ayaa kasoo cusboonaaday gobolada qaar maxaad tay aan dhihi lahayd dagaaladu horta waa masiibo weeye ummadda Soomaaliyeed waqtigan inay dagaalanto in ummadda Soomaaliyeed ay u hogaansanato yani shayga nabadda ah fiican in dib dhis wadankii dhammaan dib loo dhiso in horumarkii laga shaqeeyo in ummadda Soomaaliyeed ay ka gudubto waxa loo dagaal iyo colaad ay ka gudubto yani colaadu waxyaalaha badan ay leedahay waxa kamid ah yani burbur dhimasho dhaawac يعني وحياة بدن أو قفك بالعالم كأفية مركا وحان أوران لهنا نقوى حسب قتي هذان هاي إن أمد الصوماليين أي قرط الدنيا هذا أي نبض أي قاط ميل والبابو نبض نوامهم نبض هدي أي نبض أي هلانا حول بوه معناه هرماركي بوه معناه قيمة هذي دي بقصة نقناي شرفته دي بقصة نقنيسة كلا دميت هذي دي بقصة نقنيسة نول بوه الصوماليين meeshu doona ayuu ka ceeshiya Soomaaliya okay xaaladda Juba kor kismaayo iyo agaarkeeda iyo xaaladda Juba aad iyo aad bay horta u adag tahay laakiin waxaan rajaynaynaa hadaan xisbiga tayo in wax walba lagu xalliyo nabad iyo kala dambeyn iyo horumarka laga shaqeeyo in nabad la soo celiyo in waan meel walba la dhigo in dadka laga shaqeeyo sida ay maartay isku fahmi lahaayeen sidii nabadu ay u imaan lahayd in laga shaqeeyo nabadu haddaan meel joogtid ma imaanayso laakiin haddaad ka shaqaysid nabadu waa imaanaysaa meel dhinac walba inay u fuulaan dhinac geed gaaban iyo geed dheerba nabad ay u fuulaan nabaduna waa muhiim nin walba oo mas-uulana waxaa laga doonayaa nabad inuu soo celiyo mas-uuliyad wuxuu yahay inuu ummadaas uu mas-uulka ka yahay oo u keena nabad iyo xasilooni iyo kala dambeyn taas ayaan u rajaynaynaa mahad sanad cusub ayaa dhalanaya waxaan la xigaa umaleynaa 4 beri meelaas maxaad u rajaynaysaa ummadda Soomaaliyeed ku daawanaysa adiga iyo xisbiga tayo maxaad u rajaynaysiin Soomaalida Norway iyo Soomaalida qurbaha iyo Soomaaliyaba xasan aad baa mahadsantahay waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed sanadkiis inuu Ilaahay uu siiyo barwaaqo nabad xasilooni iyo kala dambeyn in wadankooda Ilaahay u hagaajiyo waddankoodana ay dib u dhistaan baan u rajaynayaa saas ayaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed